shirka sanadlaha ee dawladda Puntland ay kula xisaabtamayso hay'adaha caalamiga ee ka shaqeeya Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Garowe waxaana ujeedada shirkan loo qabtay uu ahaa in la ogaado shaqooyinka ay Puntland ka fuliyaan hay'aduhu iyo qorshaha ay leeyihiin sanadkan 2018 agaasimaha wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Puntland Xasan Cabdi Jaamac ayaa faahfaahin ka bixinaya ajandaha shirkan kulanka waxa looga hadlayaa lagu xisaabtamayaa waxa laga hadlayaa hay'adaha caalamiga iyo dawladda wada shaqeyntooda iyo hay'ad kasta waxay ka shaqeysay iyo sidoo loo xoojin lahaa wada shaqeyntaas ayaa laga hadlayaa marka kulanku wuxuu isugu jiraa is-arag iswaraysi isla xisaabtan iyo iskaashi maanta ayuu ku egyahay waa shir heer sare weeye si gaar ah hay'adaha caalamiga wasaarad kasta shaqada ay qabanayso iyo sida uu qabanayso iyo meesha ay qabanayso wasaaradaha ayaa kala xisaabtan wasaarad kasta laakiin shirkan shir guud oo high level weeye oo madaxweynuhu jeer gareynayo oo hay'adaha caalamiga ay dhan la isugu yeeray oo maaragtay lagu ogaanayo guud ahaan waxyaabaha hay'adaha caalamiga qabteen lacagihii guud oo sanadkii 2017 baxay oo la soo bandhigayo 2018 wixii maaragtay la qabanayo la soo bandhigayo marka wax guud oo heer kora weeye hay'adaha caalamiga iyo dawladda Puntland waa wada shaqeeyaan si fiican sida ugu fiican dawladduna waxay leedahay shuruuc kala duwan iyo xeerar kala duwan oo ay ku maamusho hay'adaha caalamiga oo ay ka mid tahay NGOs aktiga ama sharciga ururada aan dawliga ahayn iyo siyaasado kala duwan oo ay ku maamusho madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka qayb galay shirka isla xisaabtanka ahaa ayaa sheegay in Puntland ay garanayso waxyaabaha muhiimka u ah ee ay doonayso in deegaanadeeda laga fuliyo beesha caalamka iyo Puntland wada shaqeynteedu aad bay wanaagsan tahay meel fiican bayna maraysaa waana kaga mahadnaqaynaa wixii shaqaahu ay nala qabteen oo sida uu Sayd yiri iyo warbixinta aan dhageysan doono oo hay'adaha kala duwan ay ka bixin doonaan barnaamijka laakiin inaga xukuumad ahaan ama noqoto wasaaradda qorsheynta oo gateway laga soo galay Puntland cidda ugu muhiimsan oo la rabo barnaamijka inay guide garayso oo ay hagto oo ay ku hagto priority-ga iyo waxa Puntland muhiimka u ah Puntland ayada garanaysa marka waxay u badan tahay marka qaarkood in hay'adahani ay la yimaadaan barnaamij iyagu ay leeyihiin barnaamij cidna ay kala tashan ka bacdina loola yimaado wasaaradaha anuguna ka xukuumad ahaan yani ka xafiis ahaan aanu madul joogo oo ay direct garayso oo wixii muhiim noo ah ay ku jihayso waa idinka weey haddii cid walba waxay qaadanaysaa meesha u sahlan iyo tuulada u sahlan iyo magaalada u sahlan in mashruuc xataa laga fuliyo wala socotaan dabcan dadkana waxay jecel yihiin jidka dheer inay qaadaan xaggana aysan uga diginin shaqadoodana waa fushadeen Puntlandna waa yimaadeen waana loo baahnaa waa fuliyeen dhanka kale madaxweynaha Puntland ayaa ugu baaqay wasaaradaha in la jiheeyo hay'adaha si ay u qabtaan baahiyaha dhabta ee Puntland ka jira araba marka dadkan dhanna in la jiheeyo oo lagu qasbo baahiyaha dhabta ah ee dalku u leeyahay halkaan ka muuqata hadda 120 iyo 141 milyan baa la kharash gareeyay 120 iyo hadda markaan kalkuleed gareeyay 25 milyan waxay ku baxday livelihood iyo humanitarian wixii kale oo nabadgelyo ahaa ama infrastructure ahaa wax badan kama aysan qabanin sida ay muuqata inta rab marka inay hawsha qabatay inanka weey shirkan ayaa sanad walba Puntland waxa ay la yeelataa hay'adaha caalamiga ee ka shaqeeya deegaanadeeda waxayna ku soo bandhigaan in waxyaabaha ay fuliyeen iyo qorshayaasha ay leeyihiin Sacdiya Daahir wararka warbaahinta SBC Garowe.